السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malowda waa casharadii imtixaanaha ahaa dabcan midkiina idin soo gudbin doona haddii la yiraahdo. Casharkan maanta wuxuu ku saabsan yahay Server 2012 ayaan rabaa halka inaan installation ku sameeyo haddii la yiraahdo. Marka waxaan isticmaalaynaa sida arkaysaanba waa VMware virtualization ayaan isticmaalaynaa virtual machine. Marka halkan waa kala kusinaysaa create new, kadib save ku keenaysaa next ayaad leedahay. waxaan dabcan dooran oo select ah waxaan isticmaali doonaa ISO ayaan isticmaali doonaa. marka already waa noo dooran yahay. marka waxaan leenahay next. halkan waxaan ka dooranaynaa standard ayaan dooranaynaa, kadib passwordkaan gelineynaa. passwordka next ayaan leenahay. marka waxaana weydiinayaa product key waxaan weydiinayaa. marka oo isla laaban doonaa kaas. marka waa ka soconaynaa continue leenahay. marka halkan waxaan ka bedelaynaa R2 aan ka dhigaynaa. halkan waxaan tegaynaa meesha maaragtay aan installation la sameynayna haddii la yiraahdo. waxaan tegaynaa desktop-ka ayaan dhigaynaa haddii la yiraahdo. aan ugu talagalay halkaas aan ku keenaynaa folderkaas. marka okay aan ku leeyahay. next ayaan leeyahay. store a virtual disk as single file kaas aan ka dooranaynaa. next ayaan leeyahay. finish ayaan leeyahay. marka waxaad bilaabanaysaa stageka bilaabanaya. marka waa ka bootinayaa markaan leeyahay. marka stageka haduu bilaabanaya. marka sida arkaysanba wax badan ma qaadanayo dabcan stage markaas sameynaysa. marka aad bay u fududahay. marka waxaan usii diyaargaroobin oo sii qalab qaadanaynaa. dabcan waa casharada xiga ayaan sameynaynaa haddii la yiraahdo. marka waxaan doonaynaa in maaragtay active directory maaragtay dabcan si aan uga dhigno maaragtay domain controller active directory ku shaqeyno aan install ku sameyno DNS aan isaga maaragtay isticmaalno. marka dabcan qaybta waxaan uga diri doonaa roleska and featureska qaybta aan uga diri doonaa haddii la yiraahdo. waa arki doonaa haddii la yiraahdo. marka dabcan wuxuu qaadanayaa hadda time buu qaadanayaa. sugnaada dabcan waxaan jeclahay inaan dabcan ka bootiyo oo aad markii dhammaadka tahay aad tuso. waayo hadda muhiim ma ahan dabcan inaan maaragtay markii aan maaragtay dabcan waxaan isku soo laaban doonaa dabcan dhamaadka uu gaaro ayaa arki doontaa haddii la yiraahdo.
marka la socdo maaragtay dabcan qaybaha dambe insha allah casharadeenna xigana waa maaragtay diyaaradaha haddii la yidhaahdo dabcan xawaare sare ku socdaa wax badanna ma qaadan doono haddii la yidhaahdo waan arki doonaa haddii la yidhaahdo ilaa ama maaragtay meeshan aad kasoo gaaro haddii la yidhaahdo kadibna waan usheegi doonaa casharadeenna haddii la yidhaahdo marka waxaan sugaynaa insha allah maaragtay inta hortaas maaragtay kasoo gaaray haddii la yidhaahdo hadda wuxuu noo marayaa meel geedka baa noo marayaa getting files ready for installation. Oh, okay. Installing features na waa dhamaatay. Installing updates na waa dhamaatay. Waxaa noo haray waxaa waaye finishing up. Marka meeshan waa maaragtay halkaas maaragtay dabcan halkaas maaragtay dabcan gabagabana uu yahay. Restart ayuu soo samayn doonaa kadibna maaragtay waxaan sugnaaba waa maaragtay waa Windows Server 2012 ayaan maaragtay dabcan ku install galinay marka restart soo samaynayaa markuu diyaar noqdo haddii la yidhaahdo passwordkan gelin doonaa haddii la yidhaahdo kadibna waan arki doonaa insha allah sidaas maaragtay dabcan imaadka runtii waa dareemaysaan waa maaragtay waa fudud yahay sida installashka maaragtay lagu soo sameeyo dabcan wax adag ma ahan way fududahay getting devices ready okay restart maaragtay dabcan soo sameynaya marka waan arki doonaa insha allah maaragtay markuu diyaar noqdo ayaan la soo laabanayna insha allah wasalaatan asbaranayna insha allah marka waxaan siiman doonaa waa casharadeenna haddii la yidhaahdo runtii waxaa waaye casharadan maaragtay waa casharo dabcan xiisa waan imtixaanka dabcan haddii aad diyaarinayso 3 imtixaan ayaa la gelayaa imtixaankiisa oo dabcan kala duwan oo maaragtay term 11 and 12 nambaradaasi maaragtay haddaan qaldanan nambaradaasay kala wateen marka haddaad imtixaankiisa diyaarinayso iyo haddii aad si maaragtay adigu caadiga baranayso maaragtay ama yacni aad dabcan adigu aad siyaasinayso aqoontaada waxaa waaye intaba way ku habboon tahay haddaad diyaar garoobo oo isdiyaarisana oo imtixaankana aad maaragtay gashona waxaa waaye dabcan shahaadad maaragtay Microsoft ay bixisaa maaragtay dabcan ku saabsan qabtan oo 3 imtixaan maaragtay aan soo sheegaba aad gelaysaa shahaadada qaadanaysaa kadibna maaragtay nasiibkaaga ayaad qabtaa shaqada maaragtay dabcan marka way wanaagsantahay qofka maaragtay dabcan ardayda maaragtay qaybahaas ku jira
hadba waxay ku xiran tahay qofka maaragtay waqtigiisa dabcan uu haysto oo kale time siiyay ku xiran tahay waqti siiyo dabcan waa dareemi kartaan waxa aan waqti siinin ama waqti u helin dabcan sida uga guul gaartaa dabcan way adkaanaysaa laakiin markaad timekaaga chanska adigu aad haysato oo kaleeto aadan ku beerdareenin maalin iyo maaragtay dabcan inaad sheekooyin qayaaliga iyo waxyaaba maaragtay dabcan aan waxba kuu soo siyaadinaynin dambi inaad ku gasho maahane intii qofku uu geli lahay oo kale waxaa habboon waqtigiisa inuu maaragtay kala manage garaysto kala habaysto waqtigiisa oo maaragtay dabcan ka faa'iidaysto waqtigaan ma soo laabanayo waqtigaan mar oo ku dhaafaya marka shalay waxaa waaye Soomaali waxay tirahdaa goor xeradii fanaanka dhacday shalay waxba ku tari maayo marka inta dabcan timeka waqti aad haysato waqtigaada waqti walba inaad ka faa'iidaysataa habboon oo siyaabaha wanaagga ah uga faa'iidaysato marka balanteedna waxaa weeyaan maaragtay ilaalinta waqtiga ka faa'iidaysa waqtiga iyo in maaragtay dabcan lagu dadaalo waxbarashada maskaxda ilaahayna siiyey haddii maaragtay dabcan masha Allah sida ay tahay looga faa'iidaysto dabcan waxyaabo badan maaragtay ay awood u leedahay inay qabato maskaxda marka siiba maaragtay inta ay active ka tahay ama maaragtay ay shaqaynayso oo weli ay yar tahay marka in laga faa'iidaysto mar waxaa jirta dabcan qofku oo ka shaqaynayo leeyahay maaragtay dabcan sida Soomaalida ay tiraahdaba qofku markuu duqoobo ama gabow gaaro kale wuxuu ku shalayaa ay yiraahdaan markaan tabar hayay talo ma aan hayn haddoon talo hayana tabar ma hayo marka intaysan kugu dhicin taas waxaa habboon inta aad tabarta hayso inaad maaragtay dabcan aad ka faa'iidaysato waxaa ku soo mari doonta maraadan maaragtay tabar hayn marka talada laakiin markaas yacni aad hayso oo shaqada aad gelayso laakiin qofku waxaa habboon maaragtay in uu maaragtay dabcan ka faa'iidaysto timekiisa waqtigiisa inuu ka faa'iidaysto ayay habboon tahay intaasna waa la dardaaran oo aan maaragtay iskula dardaarmayno dabcan in laga faa'iidaysto waqtiga oo dhageystayaal isku sameynayaa dabcan wuxuu marayaa qaybihii ugu dambeysay marayaa wixii ka dambeeya xilligan waxaa noqonayaa diyaar haddii aan yiraahdo waxaan ku hadlan doonaa munaasabadda haddii aan yiraahdo kadibna halkaas ay noogu soo socon doonaa cashirada haddii aan yiraahdo si aan uga dhignana waxaan maaragtay dabcan domain controllers aan uga dhigno waan active directory aan hor soo gelino dabcan DNSna waan ku gelaynaa marka haddii la yiraahdo cashiradu waxay noqon doonaan maaragtay imtixaano insha Allah marka hadda diyaar noqono marka waxaan sameynaynaa inaan galno
passwordkan gelinay marka waxaan gelaynaa gudaha gelaynaa hadii laga yiraahdo kadibna cashirada sugnayna insha allah waa diyaar sida aragtaan waa diyaar marka waxsugnaa server manager ayaan maastabcan soo geli doona arkayna insha allah kadibna cashirada markaan kasoo doona hadii la yiraahdo waa diyaar marka roles and features and features in the yiraahdo and manage usoo geli doona waxaa waaye dhowr qaybood maaragtay waxaan lagu maaragtay lagu soo geli karaa marka aan arkayna hadii la yiraahdo insha allah sida qaybtaan oo kaleetan waa lagu geli karaa markaad kala kusiisid qaybtan waa lagu geli karaa marka waxaan sii doonaa ayada marka insha allah casharkeena waxaa waaye noo socon doona hadii la yiraahdo marka dabcan waa inaan qaybtan aan ku hormarnaa qaybtan markaan ku hormarno oo aan soo habeeno qaybtan hadii la yiraahdo oo manual soo gelino IP addresska dabcan ayaan hawsheena wadan karnaa marka insha allah waa maaragtay oo gudbi doonaa qaybahaas oo qaybaheeda tagi doonaa hadii la yiraahdo qaybtan oo kale si loo sameeyo waa in horta IP addresska aan fiirino IP oo IP-ga aan fiirino IP-ga sidaan aan ku aragnana waa maaragtay aad arkaysaan waa 142 ayaa u dambaysa IP addresska ku aragnay halkaan imaanaysaa manual aan gelinayna marka IP addresska iyo kusiinaysa raadkeeda ku leedahay raadkeeda markaad tiraahdo leedahay property aad tegaysaa property markaad tagtana waxaad tegaysaa application color iyo property leedahay user technology IP address manual gelina marka qaybtaas aad imaanaysaa marka 192.168.142 ayuu ahay sanadka toosha ugu imaanaya waxaan gelinaynaa marka defaultkeeda 192.168.211.2 qaybtan waxaan gelinaynaa hadii la yiraahdo private DNS serverka waxaan gelinaynaa IP addresska serverka gelinaynaa 192.168.2
alternate TNS serverka waxaan gelinaynaa IP addresska aan default gelinaynaa 192.168.2.1.2 okay aan filanahay waa xidhinaa kana waan iska xidhinaa intaas markaan hubino waxaan maraynaa remote desktopka ayaan kala ku siinaynaa markii waa la soo galay remote desktopka ayaan meel ka dhigaynaa marka ayaan kala ku siinaynaa okay leenahay apply okay leenahay saacadda dabcan anigu airline jooga Dublin oo caasimada oo ah hadda waxaa ka bedelmayo haddii dabcan wadanka aad markaas joogto aad garantiin maaragtay saacadiisa aad soo bedesho waad bedeli kartaa aad ku siinaysa marka waxaa ka bedelmayna inta badan automatic marka okay aan leeyahay okay intaa kadib waxaan dabcan tagaynaa marka computer name ayaan marka computer name ayaan hadlaynaa marka kamera ku tahay challenge meesha aad tegaysaa marka waxaan gelinaynaa magaca marka aan diyaarsaday marka DLN hakad PC hakad D7 ayaan gelinayaa D7 u taagan macnaha W7 okay aan ku leeyahay okay markaan ku yiraahdo restart samee marka restart sameynaa close on leenahay yes restart aan soo leenahay restart samee aan soo leenahay dabcan waxaan dabcan tegi doonaa TNS ku darayna ayaa passwordka la dhihi doonaa passwordka maaragtay password maaragtay waxaadana marka administrator passwordka marka marka haddana ku hadlayno hore ma soo aqaano passwordka ma shaqeynayo kaas waxaan ku haray waxa weeyaan dabcan inaan maaragtay qaybtaas
astagno oo aad qaybta userkaasina waxaan password adag u habeyneynaa administrator waxaan dooneynaa marka iyada domainka oo maaragtay inaan kusoo galno hadii la yidhaahdo ama habeyno domainka waxaasbanka habeyno hadii la yidhaahdo marka hadaan samaynin waxaa waaye waa isbitaal halkaas maaragtay dabcan laga kulmo marka waxaa si aan u aqoonin ayaa hadii la yidhaahdo hadda iska sii habeynayna insha allah marka waxaan sugnaada waa in maaragtay dabcan qaybtaas maaragtay tagaysaa waxaad sameynaa marka counter markaan tagaynaa counter markaan tagaynaa waxaan ka tegi doonaa qaybtaas bisharka waxaan tagnaa qaybta ayaa waxaan rabnaa in hadii la yidhaahdo password baan u sameyn adag waa jugmantee kala kumeena marka password password isla sameynayna okay tan loo baran yahay marka badalsan soo gelinayo aad xoolaas aan pages ayaan iska akhrinaysaa marka la akhriso waxaad leedahay list halkan ama cuburad ayaan kusoo imaano doonaa list ayaan leenahay halkan waxaad iska qodaysaa ku dooran tahay marka waa ka soo imaanaa halkan ayaan imaanaysaa waxaan ku darsanaa active domain service aan ku darsanaa pages aan leenahay waxaan ku darsanaa DNS ayaan ku darsanaa pages aan leenahay waxaan kusii darsanaynaa DHCP ayaan kusii darsanaa qadaad waa iska akhrinaysaa markaad iska akhriso ayaad ku darsanaysaa marka pages aan leenahay kadib waxaan leenahay next ayaan leenahay next ayaan leenahay waa iska akhrinaysaa qadaadaha markaa iska fiirfiirinaysaa dabcan markaas kadib next ayaan leenahay next ayaan leenahay next ayaan leenahay next ayaan leenahay okay waana ma fiirinaysaa iska fiirinaysaa waana qaybta markaan tago marka waxaad samayn kartaa inaad macnaha waxaad samaysay meeshoo samaysay si aad maaragtay aad u habaysato oo aad og maaragtay sikay ku sii kartaa wax ka badan baa leedahay store ayaan leenahay marka maanta waxuu sameynayaa maaragtay installation-kii uu sameynayaa
waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa marka waxaan sameynaynaa haddii la yiraahdo waqti kasii qaataba waxaan sameynaynaa haddii la yiraahdo aan sugno sida ay ku dhamaato haddii la yiraahdo kadibna usii gudbino qaybaha kale waa maaragtay dabcan waad dareemaysaan si xawliga ku socdaa marka waxaa waaye dabcan qaybaha maaska sii fiirin kartaa oo maaragtay dabcan inaad fiiriso waaye iska fiiriso maaragtay xagga soo habeynaysa dabcan iska sii eegto waxaad maaragtay dabcan waxaan u aragtay maaragtay dabcan istaagada kala lahaay dabcan waa dhammaa markaan waa gabagaba maaragtay kusii dhowdaa marka waxaan sugnaaba waa in maaragtay hadda qaybtan waa in maaragtay dabcan noo dhamaato marka qaybta markay dhamaato ayaan u gudbi karnaa maaragtay hawshana kale aan u gudbi karnaa bilaada waxaan sugnaaba marka waa in maaragtay qaybtaas bilaada soo gabagabaya bilaada runtii waxaa weeyaan waa dareemi kartaan hadda maaragtay waxaan sameynaa waa wax sidaa badan ma aha wax badan ma qaadanayso iyo istaagada horumaraya waa maaragtay inaad maaragtay ay soo sameyso waxaa waaye insha allah waa maaragtay fiirinaysa successful oo yiraahday waa dareemaysaan qaybtan waa lagu gudbay marka waxaad sameynaysaa waa iska xiraysaa qaybtan keligiis aad sameynahay qiimaha markaasa lagu gudbaa markaad aragtaan barbaras aragtaan calaamada mirowga ah ayaad kala ku siinaysaa markaad kala ku siiso waxaan imaanaynaa oo aan dramount ku sameynaynaa qaybtan ayaan imaanaynaa marka qaybtaan maaragtay markaasaad kala ku siinaysaa keli markaad ku siiso okay add a new first ayaan aad dooranaysaa markaad doorato waxaad gelinaysaa marka lowdaato ayaan ka dhigaynaa .com aan dhigaynaa kadibna waxaan leenahay next ayaan leenahay wuxuu raadinayaa mid hore inuu jiro maaragtay dabcan hadda qaybtan waa sugaynaa waa haddii mid hore uu jiro ma jiro waxaa gudubna marka qaybtaas waxaa kasoo gudbnay marka waxaan u gudbnaa waxaa weeyaan waa qaybta xigta marka dabcan sugaynaa kadib waxaan dooran doonaa in la yiraahdo first functional levelkan kan ugu oo Windows Server 2008 wax kale oo maaragtay ka sii ma jiraan sida meesha kale loo doorto 2003 iyo 2008 kaas maaragtay kaas markaan doonano halkan waxaan gelinaynaa passwordka halkan aan gelino aada maxay u taaqaysaa dabcan
iska maaragtay hadhow maaragtay anfacayo haddii aan wax ka qaldan nafsadeena haddii passwordka uu isku mid yahay waan ka soconaynaa haddii waan ku celin doonaa waxba badan okay qaybtan waxaa maaragtay kuwa jiri wax weeyaan maaragtay kuwa maaragtay maxaa yeelay macnaha sameyn balance markaan maaragtay marka p-found marka qaybaha macnaha sameyn marka waxaan dabcan gudaha u keeni doonaa haddii la yidhaahdo waxaan maaragtay ka samayn doonaa haddii la yidhaahdo marka hadii wax la fududeeyo taas next leenahay next leenahay qaybtan marka halkan ayaa maaragtay dabcan kadib masha Allah next leenahay halkan next leenahay sidaas waa lagu baahan yahay qaybsan wato next ayaa leenahay okay qaybtan marka waxaa weeyaan wixii aan soo sameeyay halkan waxaan fiirinaysaa kadib waxaan kii ku samaysaa view script ayaad kii ku samaysaa maaragtay fiirinaysaa marka waxaan leenahay next qaban marka waxaa weeyaan dabcan way ugu dambeeyay maaragtay soo baahiyay ugu dambeeyay ayaa soo baahiyay marka waxaa weeyaan inta badan checkpointiga waa kasoo qabanay kuma darnaa halka qaybtan la bilayo waa soo haddii la yidhaahdo inaan kadibna maaragtay keeno haddii la yidhaahdo marka gabagaba maaragtay waxaan gabagabay ku dhowdahay marka halkan fikradahan waxaa waaye dabcan wax sidaa weyn ma aha waxaad fiirinaysaa qaybta hoose okay qaybta hoose aad fiirinaysaa maaragtay taasi successful oo tigtaasi saaran tahay marka almost waa kasoo gudbo marka waxaan leenahay marka halkaan oo kaleeto marka haddii aanan passwordka soo samayn lahayn qaybaha la bartay maaragtay ay jaqan noqon lahayd oo error oo red ah aan arki lahayn marka dib u laaban ahaan lahayd kadibna aan soo samayn laakiin waaba maaragtay checkpointyadaas maadaama aan ogeyn checkpointyadaasna hor imaan karaan waan kasii gudnay install ayaan leenahay marka hadda finalkii waxaan la iraal ahaanaysaan codka dabcan waxaa dareemaysaan xilliga maaragtay videogan aan sameynaa waa xilli dabcan la jiibtay ama la seexday marka waxaa ilaalinayaa codkeyga oo maaragtay oo jiifka horta ka kixiyo marka taasna waa iraal ahaanaysaa codadaana maaragtay way gaagaaraysaan runtii waxaa weeyaan waxaa habboon dabcan maaragtay qofkii garanaya maaragtay oo dabcan marxaladaas fahmi kara marka
dabcan aan jeclaan lahaa inaad iga wadaagtaan oona dhihin maaragtay maxaa ku dhegan maxaa haysta aanan dhixin marka dabcan wadaagka siisna insha allah waayo ma jeclin qof adiga maaragtay qofkaada aad maaragtay qodobkaada qodobkiisa dadka maaragtay dabcan kicisa waa halisteeda leedahay laakiin muhiimadu waxaa weeyaan inaan isla fahno weeyaan muhiimada marka aan qaybta baterigana maaragtay wasiinayo waxaad doonaysaan dabcan in maaragtay qaybtii hadda gabagabada ay marayso maasha allah restore isu sameynaya marka kaashanada restore isu diray automatically way qaadataan successful inay maaragtay ay ahayd hawsheeda marka restore isu sameynaya marka restore kadib usoo lafta masha allah in hadii la yidhaahdo restore isu diray restore kadib masha allah in hadii la yidhaahdo okay so after waa gabagabada waxaan u gudagalaynaa ma soo fahmin doona hadii la yidhaahdo kadibna waa soo gabagabaynaa hadii la yidhaahdo marka restore isu diray administrator ayaa lagu soo galay passwordkan markas ma soo fahmayay waxaan soo sameeyay oo maaragtay ready noqdo kadibna waa qaybta waan soo gabagabayn doonaa hadii la yidhaahdo inta badan markaan diyaar nahay waxaan ka maaragtay dabcan hawshii aan soo qabanay hadii la yidhaahdo waa tooliska videoga kala soo marka okay restore ku sameeyay markan aan qoranaa maaragtay passwordkii passwordkan gelinayna hadii la yidhaahdo kadibna okay inaan soo galnay marka waxaan rabnaa maaragtay dabcan hawshii aan soo qabanay ayaan tahay inaanan maanta hadii la yidhaahdo okay so waxaa halkan qorata in
refreshkaan kusoo sameynay 3 daqiiqo waa noo soo galay marka si aan maaragtay tuso dhab ahaantii sida laga noogu dhaxlo marka qaybka noo dhiman casharada si aan kaarin doonaa marka halkaasaan kasoo gabagabeynayaa casharka maanta waana dabcan loo dhaafo markale nabadda tani casharada kale waxay idinka dhex yidhaahdo waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum